الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي سبحانه وتعالى دردارا كولا رياضي نصينا وحويا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تذكي إلهي الرمييو إلهي كعب صدا نبتاه هردمانين وهصور دمانين ودويدها كيمانين يدكم مسلمين مويان ودردارا كالنبي يدو صلوات الله عليهم أجمعين أيسيين أولاد دودي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون دين تاسون بإلهي تبارك وتعالى وتلمامية إلى نبي إبراهيم يا أولادي سي أيضر دارمين أولاد دودي ويكون أهدين إلهي سبحانه وتعالى دين تنو دين دورتو إلهي بإسلام نمضان يد دين تنو دين سيئي إيضا موية وحكا لها كل مننا ونسيد النبي عليه الصلاة والسلام وآد ود عيسان شريود دعوي في سواحة كامدها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوبتك قد قديو قلبي قد دينت هذا قصك بها نبي ورنشري صلى الله عليه وسلم نبي قوة المامي عليه الصلاة والسلام آخر الزمان كأي حلية الضنبين فتن فربضان يمن دونان فتن كافرها بدن لو قفك مسلم كان قيسيين وقالوا به قال كان قيسيين وإسلامه حياها والله ليالمان تاينو واقعين كاركينا برشدين دحلي إنو كاركينو 25 sannadood kadib burburkii Soomaalidu adduunyada kala galeen oo meelo fara badan bay u kala kaceen way isku soo noqdeen dadka faraha badan ee caalamka kala galay ihsaan baa loo sameeyay waa la soo dhaweeyo dhaqaale lagu bixiyo dacmiye taageeriyo naas nuujin iyo heel iyo hoob oo la garab taagnaa waxaynu garan karnaa shar iyo khayrba qof kasto soo noqday wuxuu la soo noqday ummadda kale irdhowday isku wada timideen waxbay la soo wada noqotay adduunyada qof markuu ihsaan sameeyo wanaajinayo bilaash ugu ihsaan sameeyo ma jiro iska ihsaan sameeyo qof muslimada aakhira khayr rajaynaya mooyaan laakiin qof gaali ma jiro hadii ay markaa waxa weeye adduunyada uqalo oo dhan dadka wax yaqaanada wax isku waafaqsan yihiin qofka hantidiisa iyo xoogiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisa iska galiya meel aan u danaba u lahayn waxa la yiraahdaa waalin qofkaas qof waalan baa loo yaqaanaa majnuuna hayaadka iyo reer galbeedka waxyaabo fara badan inagu dacmiyay inagu taageeray waxaynu hubnaa danun bay kulay leeyihiin wax bilaash ah oo iska socda ma jiro hantida ayna siinayana kama maarmina kuwoodii baa banaanada jiifo gaajaysan takhdiidaadka iyo manhajiyada iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee laga dan lahaana waxa kamid ahaa mujtamacan iyo bulshadan Soomaaliyeed waxyaabo fara badan oo caalamka kale uu ka midaysan yahay oo caalamku ka midaysan tahay jira wadan ahaan luqaday ka midaysan tahay oo dhaqankay ka midaysan tahay oo diintay ka midaysan tahay oo caadifada iyo dareenkay ka midaysan tahay oo bulshada Soomaalidu isku dhanbay wax wada aragta qaaliban arrimaha noocaas iyo kala takhdiidaadkii reer galbeedku waxay keeneen sidii loo tamsiiqin lahaa ee loo googoyn lahaa 25 sano kadib waxa wadanka ku soo noqday ama Soomaaliga dadka ku hadla lagu arkaa shabakada tawaasulka wixii la mid ah balaayadii adduunka taalay oo dhan baa Soomaali laga dhaxlay waxa laga dhaxlaa dad diinta dacaayadeeya bismil cilm iyagoo cilmi sheeganaya professornimo iyo meel sare inay gaareen oo isxariifinaya inay diinta dad badan dhaleeceeyaan باسم العلم وحال هلا dad fara badan oo shiica oo Soomaali ku soo noqday af Soomaaliga ku sheekeynay mid carab ah oo kulli wada aragteen mid Soomaaliya shiicanimada u qabanaya ninka carabka shiiciga waxa 100 jeer ka afxun oo saxaabada sidoo u nacdalaya ka sareeyaba ka Soomaaliga khariban ay ka sii daran ay ka hoos hadlaya waxa ku soo noqday dhammaan shuruurtu noocyada ahaayeen oo dhan baa walaalayaal bulshadeena ku soo noqotay sidaa darteed naseexooyin baad gudboon dadka muslimiinta ah ee walaalaha inay isasiiyaan iyadoo nasaayixda aynu isasiinayno oo dabcan naftayda aan ka bilaabayo waxa walaalayaal kamid ah nasaayixda aynu isasiinayno habeen iyo maalin beenaynu ku ducaysanay ilaahay diintan inagu sugo oo sidii nabiga kaleey salaatu salaam aynu dhaahno yaa muqallib alqulubi thabbit qalbi ala diinik ilaaha qulubta gadgadiyo diintaada saxda qalbiga ku sug sida nabigeena dhaahno sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha walaalayaal isku dardaarmayna waxa kamid ah qofku inaanu qaadanin kalsooni mutlaq oo aan odhanin anigu muslim dhalay baan ahay awgeena muslim buu ahaayo cidna waxba ay tari mayso cidna markaa wax weeye simbirrixin mayso cidna ilagdi mayso qola ka awood badan oo ka cilmi badan oo ka aqli badan baa la lagday oo dhinac kala maray oo aakhirataankoodii ku gabagaboobay xaalad xun suul khaatimana ku dhameystay nabi ibraahim alayhi salaam
oo tawxiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam qudwo ugu ahaa oo nabi maxamed ilaahay amar ku siiyay inuu nabi ibraahim ku daydo thumma waxayna ilayka an ittabi' millata ibraahim xaniifan wama kana min almushrikiin nabigaasa wuxuu oran jiray wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam ilaahu anigii inamadayda waxaad naga badbaadisaa inaanu salaam iyo caabudno hada waa nabi ibraahim adiga miyay kugu soo dhacday ninkaagan Soomaaliga ah ama qofkaagan Soomaaliga ah miyay kugu soo dhacday bulshadeena markaynu miisaano ama qofkaagan muslimka ah miyay kugu soo dhacday maalmaha kamid ah oo muslimiin sanam isu joodi doonto kuma soo dhicin hadana nabi ibraahim tiibu ilaahay ka magan galay ayuu leeyahay ilaahu sanamyada naga ilaali ibraahim at-taymi wuxuu yiri rahmatullahi alayhi waman ya'malu al-balaa ba'da ibraahim nabi ibraahim kadib yaas dhiganaya oranaya anigu nabadgeliyaan ku dhimanayaayo islaamnimaan ku tagayaa marka inaynu isdhiganna ma aha inaynu habeen iyo maalinba ka warwarno oo inuu ilaahay barino inaynu marka waxa weeye walaalayaal diinteena saddexaad aynu gacan adag ku dhigno oo habeen iyo maalin aynu ku fikirro diinteena sida inoogu sugnaan lahayd saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee nabigu tababaray ee diintu qalbigooda degtay ee iimaanku qanjaha joogay waxay ahaayeen kuwa adduunyadu siday u dhantahay aan diinta weydaarsanay adduunyadu siday u dhantahay awlaadooda iyo maalkooda iyo hantidooda iyo maantana waxa laga yaabaa in qofku uu gaaloobo carad min addunya ama diintiisa uu shaki uga galo wax yar oo adduunyo ah oo shilimaha kooban ama mustaqbal wanaagsan oo yar dhalaalayo meel uu ka arkay wax la mid ah saxaabiga la oran jiray Cabdurrahmaan ibn Hudaafah as-Sihmi Abdullah ibn Hudaafah as-Sihmi afwan saxaabiga la oran jiray Abdullah ibn Hudaafah as-Sihmi ayaaba wuxuu u tagay boqor kamid ah boqoradii Roomaanka qabtay isaga sariye iyo gaada yar watay markaas waxa uu amar ku siiyay si uu sii daayo u cafiyo isaga iyo ciidankiisa la socdo boqorkii Roomaanka oranaya inaad ka waxa weey diinta ka noqotaan islaamka markaas wuxuu ku qoslo wuxuu yiri maxaad nagu sameynaysaa hadaan ka noqoobay waan idin laynayaa buu wax kale miyaad hayn buu aan laynahayn dana Allah imika ba noogu dhaqso ninkii wuxuu la yaabay kalsoonida saxaabiga qalbigiisa ku jirta markaas wuxuu ku yiri dilmata ugu xun baan idin layn doonaa bi abshaci qatl wuxuu amray in la karkariyo xeero dhowr cisho la karinayo oo biyihii iyo saliidii iyo wixii ay markaa waxa weeye hureen deeto qoladii la socotay mid kamid ah si uu Abdullah ibn Hudaafah as-Sihmi tusaale u siiyo ayuu mid kamid ah intuu la soo qabto ciidankii amray boqorkii baa lagu dhex tuuray xeeradii asoo deer yalla fu kala baxay Abdullah waxa weeye saxaabigii Abdullah ibn Hudaafah ayaa ilmeeyay markaas boqorkii wuxuu yiri ajaban markaad baqatood oo yido istilwaa lagu karin doonaa ku karin maayee iskaga noqon diinta markaas uu yiri ma wallahi waxaan jeclaystay oo fiirsa saxaabiga kamaan ooyin dilmada waxaan aad u jeclaystay buu yiri inaan 100 nafood oo noocaas yeesho marba xabad ilaahay dartii loo gubo loo ololiyo hadana tu kala yeesho oo hadana loo ololiyo saasaan jeclaystay buu intuu ninkii boqorka ahaa yaabay wuxuu yiri warba madaxa uniga dhunkaan ku sii daayay ninkaaga wax kala taaybe markaas wuxuu wallahi inaan ka dhunkanayn ilaa aad ku weela socdo dhasiidayso markaas uu ku yiri iga dhunka waan sii wada deynayay madaxu ka dhunkaday Abdullah ibn Hudaafah markaas isagii ciidankiisa la sii daayay Abdullah Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo waqtiga muslimiinta uu talinayay intuu istaagay baa wuxuu yiri ummadda u khudbadeeyay xaqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudaafah as-Sihmi مسلم كاستوحى حقه وكو واجب انه مدح كدون كذا عبد الله بن حذافه markaas saxaabigiisa radiyallahu anhu loo soo galay iyadoo madaxiisa la dhunkanayo oo aad loola dhacsan yahay diinta iyo kalsoonida iyo qiimaha iyo qiyamka uu xambaarsan yahay walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu barino way habeen iyo maalin inuu diinta inagu sugo masaayixa walaalayaal inuu sasiinayna waxa kamid ah ummadan salafkeedii saalixiinta asxaabadii ka soo bilow dadka shubaha iyo balaayada wada may dhageysan jirin dhagahay faraha ka gashan jireen waxay oran jireen rag fara badan oo salafkii kamid ah waxa laga wariyay inay oran jireen al-qulub daciifa wa shubahu khataafa ama macnaha wax la mid ah oo ay sheegayaan qalbiga bani aadamkuna uu taag daran yahay shubahuna waa wax halis oo qofka dhufata MSaan in isku kalsoonaayo laha aqri baan ahay waan aqli badanahay aragtidayda dheer thaqaafadayda horeysa nin reer magaalo agtiisa la soo mari karin baan ahay aqligayga wax ku kala miisaama oo la degtay fara badan shubahaadka iyo waxyaabaha diinta duurxulkeeda ee dacaayada dadka munaafiqiinta qaarkood sameeyaan dadka qaarkood oo gaala ay sameeyaan dadka qaarkood oo muslimiin ah laakiin jahli haysta ay sameeyaan oo qaar fara badan min haythu la yashcuruun meel ay ka dareemeen diinta ay ka durayaan ay ka docdilaacinayaan in la iska ilaaliyo la dhageysan oo la musharakaynin oo marka waxa weeye laga qayb qaadanin shabakatu tawaasulka waxa hadda ku badan qaarkood baa waxay la baxayaan magacyo baraaq oo qurux badan iyagoo diimo kala faafinay oo mesela kamid tahay waaga cusub waa magac qurux badan nolosha cusub waa magac qurux badan waa meelaha soo dhawaaga cusub iyo nolosha cusub iyo maandoon iyo kulluhu waa meelo
Soomaali fara badanna ku jirto afkaar aad u samaysan oo halisna lagu faafiyo diinta did u ah oo ka soo horjeeda sidaas oo kale walaalayaal waxaan markaa dardaaran ku bixin lahaa waalidiinta markaynu inagu lafaheenna ka adkaano kulli waxyaabahani saameyn bay ku leeyihiin carruurta iyo qof kastaaba dee ay baadhkiisa iyo alaabtiisu gaar u wataa qof kastaaba yadxak wayataxaddath maca haatibi telefoonkiisu la sheekaysanaya oo la qaada dhigaya waxyaabaha noocaas iyo kale aynu awlaaddeena uga digno inaguna habeen iyo maalin ilaahay subxaanahu watacaala gacmaha aynu hoos haysanno shubaha iyo waxyaabaha noocaas oo kale aynu ka fogaano dadka noocaas oo kale in muqaataca lagu sameeyo aan la dhegaysan waxaan ku gabagabaynayaa hadduu qof maanta kuu yimi hadduu ku idhaahdo niyo waxaad siisaa 5 daqiiqo oo dhagahaaga ka mid ah waalidkaa iyo aabbaha iyo hooyadaa baan nacdaleen meel isugu keenayaa ina dul qaado dhib ma laha intaasi oo la isgaarsiiyaayahoo xoolo iga qaateen mid raalli ka noqonaysa warbalukaadii waad leedahay xoolaha kaa qaateen anaa kuu raadinay afka ka dhowro sidee bay bilaahi calaykum suuragal u tahay diintii oo dadka qaar dhaleecaynayaan ama ay duur xulayaan ama ay dacaadiyeen inaynu dhagaha siino oo aynu waqti siino oo aynu maxaa la idhaha comment iyo tacliiq siino ama aynu taageerraba waxaa markaa waxa weeye ka mid a taageeraha qaarkii qof dadka qaarkood ama taageeraha qaarkii dadka qaar wuxuu sabaaba inay diinta kaga baxaan ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteen walaalayaal diinta haynagu sugo cid fitnada uga mudani ma jirtee qof kastaaba u fitnoobaayey inaynu ilaahay ka barino diinteennu inagu sugo in ilaahay subxaanahu watacaala uu inaga dhigo kuwa carshigiisa harsada jannaadkiisana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku casuumo subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk